السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، كل عام وانتم بالخير. وانت عمل تي في او دلك سو دوادا maanta way tahay taariikhdu 23 bisha May 2020 ayaa waxaa soo booqanay suuqa weyn ee magaalada Minneapolis ee Soomaalida caan ku tahay oo ay qaadaan suuqaas oo soo gaarnay saacadihii u dambeeyay ee galabnimadii oo dadku subhanallahi bukratan wa asila dumar iyo صدق وعده ونصر عبده وأعزكم taasoo u sabab ahayd cudurka COVID-19. hadda maanta aad moodo markii dib suuqa loo furay in suuqa qayarka businesska aad moodo in dadku ay soo baxeen oo ganacsiga iyo meelaha bacadlaha iyo meelaha ciid laga yiito ay joogaan. maran soo booqanay magaalada oo suuqa gudaha u galnay warbixinta suuqa aan ku aragnayna waa sidan tan kuna soo dhawaada halkani waa suuqa weyn oo 24 kan gudaha u galnay mar aanu warbaahinta Amuud ay booqatay dabaqa kore oo masaajidka uu ku yaalo ayaa waxa arkaysa dabaqo faaruq ah iyo maqaaxiyaha iyo meelaha meeradaha oo dadku isugu imaan jireen bulshada inta badan oo aad u xiran taasoo sabab ay u tahay cudurka COVID-19 oo la dhahay social distance wax la dhaho iyo kala fogaanshiyaha talaabooyinka ku xiran taasoo ay magaaladu ay faaruq tahay dadkana inta badan aad moodo inay soo dhaadhicin ama ayna soo bixin laakiin aad arkayso meelo badan oo rag u badan yihiin ay tuuran yihiin kuwaas oo fadhi ku dir ama sheeko aad arkayso ay la fadhiyaan sheekooyinkaas oo inta badan iskugu imaadaan Soomaalida oo caan ay ku tahay meelaha sheekooyinka loo soo doonta ayaa ahaan jirtay suuqan 24 ko aad iyo aad ugu badan dadka qaar ee waxaad arkaysaa meelaha qaar ee jimicsiga iyagoo soconaya ama lugeynaya. halkani waa warbaahinta Amuud TV ku xirnow kuna soo dhawo barnaamijkeena markastana kala soco muuqaalada aan soo dhigi doono magaalada Minneapolis.